kulan wanaagsan saaxiibayaal dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena murti iyo mahmaah waan idiin soo gudbinaa goorahan oo kale. barnaamijkeena hore haddaan idin xasuusiyo waxaan ku soo qaadanay mahmaahda Soomaaliyeed ee tirada 3 baa saldana ama madaxtinimo ka qaada gar eexeed gacan guran iyo guddoon jilicsan. barnaamijkeenan oo kii shanaadna waxa aan ku falanqeynaynaa mahmaah kale oo kamid ah mahmaahda Soomaaliyeed ee ugu caansan uguna xigmada badan. waa mahmaah markaad u fiirsato si ku dhisan cilmi iyo aqli kugu iftiiminaysa wadooyinka ku gaarsiin kara horumarka adeegsanayso. haddaad seegtana sabab u noqon kara in weligaaba aad fadhiid ahaatid inta aad nooshahay aadan ku naaloonayn horumarka iyo baraaraha aad doonaysid. waa mahmaah si xigmadaysan kuugu muujinaysa waxyaalaha lafdhabarta u ah horumarka qofka, qoyska ama bulshada oo dhan, sida xulashada iyo tayada saldhigaaga, agabka aad u adeegsanayso hawlahaaga lama quraanka ah iyo iswaafajinta qorshahaaga iyo hawlahaaga. waa mahmaah markaad fahamto ku siyaadinaysa baraarug hor leh aadna ka marqaati kacayso in ay tahay kay dhaxalgal ah oo ay noo reebeen indheer garadkii hore. waa mahmaahda tiraahda nin maalin ma gaartid, ninna sanad ma gaartid, ninna weligaaba ma gaartid. ninka kaa gaadiid wanaagsan maalinkaas oo dhan ma gaartid, ninka dhaqan ama tabac wanaagsanna sanadkoo dhan ma gaartid, ninka xil fiicanna weligaaba ma gaartid. sidiisaba qofka bani aadamka waxa uu had iyo gooraalaba ku hawlan yahay sidii uu horumar uga gaari lahaa una hanan lahaa danihiisa. haddana laba kasta waxay ku kala duwan tahay wadada ay u marayaan gaarista yoolka iyo himiladooda. sidoo kalena waxaa kala duwanaada qaababka iyo siyaalaha kala duwan ee aan soo sheegnay in ay kala duwan yihiin qaabka ay u fulinayaan hawlahooda. sidoo kalena waxaa kala bedelnaada natiijooyinka ay ka dhaxlayaan qaababka siyaabaha kala duwan ee aan soo sheegnay in ay u maraan dadaalka ay ku raadinayaan horumar buuxa. natiijooyinkaas ayaa dadka qaar u horseeda farxad iyo raynrayn, dadka qaarna u keena saluumo iyo ishaaraan iyo in dib ay isu weydiiyaan waxa xumaaday iyo wado kale oo ka nuxur wanaagsan midii laga hungoobay ee shalay. dadaalkaas ayaa marka dhinac laga eego waxa uu noqonayaa tartan qof waliba uu kula jira asaagiisa. sida aad garan kartana marba haddii tartan yimaado waxa hubaal ah in lagu kala horeynayo. haddana kala horeyntaasi maaha mid isku jaango-an oo inta la kala horeynayo ay leedahay cabir cayiman oo ku ega meel la isla wada yaqaan, balse waa kala horeyn kala duwan oo inta qof ka horeeya midka kaleba ay ka duwan tahay kala horeynta labada kale. kala duwanaantaasna waxaa sabab u ah xeeladaha iyo qorshayaasha uu adeegsado tartame kasta, kuwaas oo dhaxalsiiya natiijada uu haysto. mar waa in waalka ama asaaga uu kaa gaadiid wanaagsan yahay maalintaas. gaadiidkaas ha ahaado mid miyi, mid magaalo, mid cirka, mid dhuleed iyo mid badeed ku doonaba. mar hadduu kaa gaadiid wanaagsan yahay shaki kuma jira inuu kaa hor ebiyo howl maalmeedkiinii maalintaas oo isku mid ahaa. sidaa daraaddeed si kasta oo aad u dadaashid maalintaas ma gaari kartid ninka kaa gaadiidka ama agabka wanaagsan. mid labaadna waa ninka kaa tacabka ama dhaqashada wanaagsan bilahaas oo ay qasab tahay inuu kaa natiijo wanaagsanaanayo. tacabka ama dhaqanku ha ahaado mid xoolo dhaqasho, mid beera tabcasho, mid jilaabasho, mid ganacsi iyo wixii la mid ah. mar hadduu hortaa qabsaday wax aadan qabsan, waxa caddaan ah in si kasta oo aad u xusul duubtida aadan gaari karin sanadkaas maadaama uu kaa horeeyey. haddana uu kaala siman yahay dadaalka iyo dardarta aad la timid. midda saddexaad oo ah nuucda iyo nuxurka ugu weyn ee mahmaahdan oo indheer garad badani ay sheegeen in labada kale lagu xoojinayo ee mahmaahdu ay tooska uga hadlaysaa waa ninka aadan weligaaba gaari karin. waxaa la isku raacsan yahay in labada wiil ee isku asaaga ahi ay ka siman yihiin oo ay wada yihiin dhalinyaro. muddo kadib ayuu mid waliba waxa uu yagleelaa reer isaga oo doonaya inuu horumar dhinac walba ah sameeyo. waa run oo macaanka noloshu waxa uu kuu horleeyahay marka aad gaarto marxaladda reernimo. waxaase asaaga uga duwan tahay qofka aad nolosha la wadaagayso oo ah saldhigaaga rasmiga ah. inta ay la egtahay kartida iyo dadnimada qofka kugu lamaan ayay noqonayaan rajadaada, horumarkaaga, himilooyinkaaga iyo guulaha aad gaarayso ama guuldarrooyinka kula soo gudboonanaya. waa arrin aan aalaaba isbedbedelin maadaama ay ku salaysan tahay kartida iyo abuurista qofkaaga. haddii aad nasiib u yeelato xilo wanaagsan durba waxaad gaartaa guulo badan oo isdaba joog ah. hadba waxaa kuu hilaaca himilooyin hor leh oo iyagana aad si sahlan uga marar dhaliso qofka kugu lamaan awgis. waxaad horumar ka samaysaa dhaqaalaha, tabaca, magaca, maamuuska, barbaarinta ubadka iyo arrimo kale oo badan oo muhiim ah, kuwaas oo dhammaantood aad ku guul daraysato haddii nasiibkaagu kuu beego xilo aan lahayn dadnimo, dhiiranaan, wax maqal, tala raacis, tala keenis, tashiil, qorshe, daryeel,
barbaarin iyo waxyaalaha la midka ah ee laga maarmaanka u ah taabagelinta qoys sare iyo guulo laga gaaro nolosha. sidaas daraaddeed ayaadan weligaaba gaari karin ninka kaa xilaa fiican oo guulaha uu gaarayay ay yihiin kuwo badan oo isdaba joog ah, halka adigu aad dhaxlayso guuldarrooyin badan oo joogto ah. waana xaqiiqo aan muran ka taagnayn in haddii lamaanaha iyo raaskaagu ay hagaagaan ay wax walba kuu hagaagayaan, haddii ay kaa xumaadaanse ay wax waliba kaa xumaanayaan. iyada oo aada loo garwaaqsan yahay natiijooyinka saddexdaas arrimood ayay soomaalidii hore ku xustay mahmaahdan caanka noqotay, qof walibana raadka iyo saamaynta ku leh. oo waxaa la yidhi, nin maalin ma gaartid, ninna sanad ma gaartid, ninna weligaaba ma gaartid. ninkaa gaadiid wanaagsan maalinkao dhan ma gaartid, ninkaa dhaqan wanaagsanna sanadkao dhan ma gaartid, ninkaa xilo wanaagsanna weligaaba ma gaartid. haddii aad halkaan nala soo gaartay, shaki kuma jiro in aad garatay xigmadda, micnaha iyo nuxurka mahmaahdan, oo waxa ugu weyni ayaa nagu baraarujinaysaa uu yahay in horumarkaagu ku xiran yahay dadnimada iyo kartida xaaskaaga. waxaana xaqiiqo ah in hadduu guurku kaa xumaado wax walba ay kaa xumaadeen, hadduu kuu hagaagana wax walba ay kuu hagaageen. waxaa kaloo ay mahmaahdan ku tusaysaa in agabka aad u adeegsanaysa howlahaaga sida gaadiidka iyo wax kastoo aad doonayso inaad uga miro dhaliso howl maalmeedkaaga ay sabab u yihiin natiijadaada maalintaas oo noqonaysa sida ay hadba tayadoodu tahay. markalena waxayna tusaysaa in qorshaha, dadaalka iyo sida aad uga faa'iidaysato waqtigaaga oo goorta ku habboon aad ku qabsato howlahaaga muhiimka ah ee munaasibka ah ay tahay waxaa sanadkaas oo dhan ay ku kala horeeyaan laba qof oo isku dan ah si ku kala duwan dadaalka iyo ka faa'iidaysiga waqtigooda. ugu dambeynna mahmaahdan waxaa loo adeegsadaa marka laga hadlayo waxa ay ku kala tageen laba qof oo isku dan, deegaan iyo duruuf ah. waxaa lagu muujiyay ahamiyadda gaadiidka wanaagsan, dadaalka iyo digtoonaanta la xiriirta ka faa'iidaysiga waqtigaaga, iyo midda ugu culus oo ah in horumarku ku xiran yahay tayada xilahaaga, taasoo si kasta oo aad u dadaasho marba hadday liidato kaa reebaysa asaaga, hadday wacan tahayna si sahlan kaaga horumarin kartaa. waxaan filayaa inaad fahamteen mahmaahdan iyo nuxurkeeda. intaas ayuuna ku dhan yahay barnaamijkeena murti iyo mahmaah qaybtii 5aad. waxaan uga hadalnay mahmaahda Soomaaliyeed ee tiraahda, nin maalin ma gaartid, ninna sanad ma gaartid, ninna weligaa ma gaartid. ninkaa gaadiid wanaagsan maalinkao dhan ma gaartid, ninkaa dhaqan wanaagsanna sanadkao dhan ma gaartid, ninkaa xilo wanaagsanna weligaaba ma gaartid. waad ku mahadsantahay waqtigaaga qaaliga ah ee aad nagu daawatay ama nagu dhageysatay. wixii talo iyo tusaale ahna fadlan waxaad noogu reebtaa qaybta commentiga. haddii aad nagu cusub tahay, ha ilaawin inaad subscribe saartid boggan si aad ula socotid macluumaad badan oo muhiim ah oo haddii alla idmo aan idiin soo tabin doono. intaanse mar kale kulmayno waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo ammaano allah. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.